ciidamada amniga Somaliland ayaa xalay xiray 3 wariye oo ka tirsan telefishinka MMTV xilli telefishinkaasi ay ka socotay dood la xiriirtay heshiiskiis afgarad ee dhexmaray dawladda Ethiopia iyo Somaliland. ururka suxufiyiinta Somaliland ayaa si adag u cambaareeyay xarigaasi waxayna ku baaqeen in si degdeg loo sii daayo. haddaba arrimahan waxaanu ka wareysanaynaa oo qadka Skype-ka si toos ah ugu jira Cabdishakuur Maxamed agaasimaha guud ee telefishinka MMTV. Cabdishakuur bal maxaa loo xiray wariyaashan oo lagu soo eedeeyay Falastiin iimaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa fursadan ay siisay idinka iyo baad VOA Falastiin sida dad badan ay ka warqabaan xalay hore weerar ayaa ku dhacay xarunta MMTV weerarkaasi oo ay geysteen ciidamada ammaanka ee Somaliland xilli telefishinka ay ka socotay markaa dood ku saabsanayd arrimaha heshiiska ama is afgaradka